السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا هرومر مطبخاga janal asxaabay waan idin salaamay meel kastood kala joogtaan xilli kastoo idin tahay insha Allah waqtigu ha idin wacnaado asxaabay soo dhawaada gacmo furan qalbi furan kusoo dhawaada maanta waxaan sameynaynaa kariib ayaan sameynaynaa ama mulawax kulba sidii loo yaqaano quraac yar oo aad iyo aad u fudud waxaan rajeynayaa inaan ka wada faa'iideysan doono isla socod wacan bismillaah halkan waxaan ku hayaa in bakeeriga yar ee daqiiqda ah bakeeriga yar daqiiqda ah waxaan kusoo darayaa mulqaacad sonkor ah mulqaacad sonkor markaan ku darana waxaan kusoo darayaa qabso ama binij milixa far iyo suul macnaha waxaan kusoo darayaa mulqaacad olive oil ama saliid olive kolba sidii loo yaqaan saliid saytuun yacnihi waxaan haystaa bakeerigaas caanaha ah bakeeriga caanaha si tadriijiyana ayaan ugu qasi doonaa yacni si tartiib ah marba in yar baan ku darsan doonaa waan qasi doonaa ilaa inta ay daqiiqdu fiicnaanayso aan sidaan ku dubay rabo ay noqonayso asxaabi aad ayaan u qasayaa qofka khalaadka haysta khalaadka wuu ku qasan karaa sidan imkaan u qasayna waa fiican tahay in soo loo qasano way wanaagsan tahay yacni khalaadka markaan leeyahay waa blenderki ama koobkii aan sharaabka ku shiidaynay asxaabi saas ayaan u qasayaa waana qasmaysaa ilaa iyo inta kutlaadka iyo waxyaabaha yar kuskuuska dhan iga qarsoomayaan wixii aanan arkayna shaandhada ayaa ka reebi doonta insha Allah waayo markaan dhammaystiro qasitaanka waxaan sameyn doonaa waan shaandhayn doonaa insha Allah bal aan eego horta inay ii sax tahay way fiican tahay laakiin in yaroo naqan oo caano ah ayaan kusoo kordhin doonaa oo aan waxba ahayn inta markaan ku kordhinayaan isku yar qaso si ay caanaha yarna u dhex galaan oo mutajaanis u noqoto markay mutajaanis garowdo ay si fiican isugu kay dhex galaanna waan shaandhayn doonaa san hore u sheegay shaandhadaasna waan sheegay wax ii faa'iideynaysaa waxyaabaha aan arkin bay iga reebaysaa asxaabi waan iga shaandheeyay saas ayuu maasha Allah qooshkeygii naacim jilicsan oo daraya igu yahay kutalaadkii iyo wixii aanan arkayna wata shaandhadii iga reebtay caanihiina intaas ayaa iga hadhay waxa weeyaan iska rubuc koobna way ka yar tahay markaad caanaha iyo waxaas weelka aad kusoo shubataan tartiib saasoo kale ugu samaystay insha Allah intii garanaysaa way garanaysaa inta aan garanayna ay ku cusubna ka faa'iideysi wacan ayaan idin leeyahay asxaabi halkan maqliga waxaan saliid yar baan mariyay saad arkaysaan mulqaacada maraqa aynu ku isticmaalo gudan ayaan soo daray qooshka aad maqliga ku shubaysaa waa calaa xasbi maqliga aad haysato maqliga aad haysato kulba intuu leeyahay ayuu qooshkaaguna leekaanaya aniga maqligaygan mulqaacada mugeed baa ku filan isaga ka weyna kolba dee inta xajmigiisu leeyahay weeyaan hareeraha ayaan kasoo eegaya inuu meel ka haysto haddii aan rubo isagoo yacni hareeraha meel ka haysta wuu iga kala dilaacaya waayo wuu jilicsan yahay soo maaha marka asxaabi saas ayaan u dubayaa kariibkii insha Allah oo aan kusoo dhammaystiri doonaa kariibka saad arkaysiinba wax beeda kumaan darin anigu kariibka beedka lagu daro ma isticmaalno sidoo kale dadka waxa ka faa'iideysan doonana la midka ah beedka kariibka aan ku jeclayn ama beedka xasaasiyadda ku leh sidoo kale waxa uu u fiican yahay kariibkani dadka gaasta qaba laxooxda aroortii aan cuni karin dalac bilaash yar baad ku isticmaali kartaa beer kaliyo digaag kalluun يعني aroortii duqad laguma quraacdee dad baaba laakiin suqaar iskaga quraacday suqaarka laftiisa aad buu u anfacayaa marka asxaabay insha Allah ka faa'iideysi wacan ismale malaha bikin saas uu egyahay quruxda maasha Allah saas buu u jilicsan yahay waxa la wax dhibaato oo leeyahay ma jirto baroon waad ka daqiiqda baroonta waad ka dhigan kartaan ama qabadinka waad ka dhigi kartaan oo sano kale waa u sameyn kartaan in yar baad ka adkeynaysaan kan caano boore ama caano powder waad ku darsan kartaan mulqaacad qofkii aan caano socdo haysana caanahaas bubada qasayaayo dee ku qooshaya dhidoogiyo waxyaabihii ankarkii iyo waxyaabihii kale asxaabay sidaas ayuu kariibkeenu u egyahay maasha Allah dul iyo hoos dahabi weeyaan aad inuu idin cajibiyo ayaan rajeynayaa insha Allah waan iga soo dhameeyay waa kasaas daray oo ah
u jilicsan u qurux badan indhaha u roon sidaa uu indhaha ugu roon yahay ayaan iyo cunistana insha allah ugu roon yahay waa in matbaqa waa inaad ku camirtaan insha allah biidmillahi kariim oo aad yar iyo weynba uga faa'iideysaan meheradaha xitaa wuu ku soconayaa maasha allah asxaabay maqligii ayaan soo qaaday muqaacad iyo bar taqriiban saliid ah ayaan ku shubay oliif ah saliidaha kalena iyo subag iyo waxaana waa iska isticmaali kartaan qofka wuxuu jecel yahay waxaan kusoo darayaa basal iyo barbarooniyo barbarooniyada qofka mid keliya haystaa way ku filan tahay qaji qofkii raba wuu ku darsan karaa laakiin maadaama quraac tahay anuu qajina kuma darin waxaan ku daray basasha iyo barbarooniyadaas unbaan isku soo daray mar qurana waan ku wada rogay saad arkaysana waxaan doonayaa inaanay iga casaanin inaanay xoog iga shiilmin ayar baan doonayaa inay ii shawaxdo waxaan kusoo daray milix yar iyo filfil yar iyo nacnaac yar oo mujafafa in yaroo samaaqa iyo nacnaaca qofka aan haynin wuu iska dhaafi karaa kamuun qofka jecel wuu ku darsan karaa iyo geedo halkan waxaan kusoo dara kale xabad xabuuba oon soo gaagaabiyey laakiin markaan xabubta ku daray dabka waan baktiyey dabkuma socdo imika kalluunkii baan kusoo daray kalluun baan ku daraya maanta anigu halkaa laakiin wax kastaad ku bedeli kartaa beer keliyo wax alla waxaad rabtid digaag kalluunka caadiga badda laga keeno waxaasoo dhan baad ku bedela khudaar keliyaad ka dhigan kartaa calaa ikhtiyaarik asxaabii markaan dhameeyey intii aan isku dalacayay waxaan halkan kusoo shubay jiistana iyaduna waa wax iska ikhtiyaariya haddanaad haynid isku kalifi maysid intaad malawaxa samayso oo aad kalluunkii alaabta kale amba beer amba waxaad haysay kala samayso ayaad intaasunbaad israacin kartaa ama aad iska rabdhigi kartaa ay dhisayn aad rabtid ayaad u samaysan kartaa waan isku dhadhajinayaa si laba ayaan isku raacinayaa wuxuu ii noqdayba dee koobkii yaraa 5 xabadood markaa laba isku dhaji labana isku dhaji xabadna gooniha iska ahaato markaa saas ayaan u samaynayaa asxaabey insha allah waxaan rajaynayaa inuu noqdo cashar in anfaca oo aad ka heshaan biidmillahi kariim saas ayaan xabada ku sameeyay xabadii kalena waa tan ay samaysantay iyaduna tanna halkaa kale iyadana inaga dhig asxaabi maqliga markaan xaggan u yara rogaa dhinaca kale iyo jiistiiban in yar dhinacaas aad uga dhalaalin markaa saasaan u rogay markaa xaggaa tan iska dhigno waxaanu haysanaa basal yaro xalaqaada maqliga markaynu ka qaadnay kariibkii wax saliida iyo waxba kumaan shubin markaa basasha yara xalaqaadka u googo'an baan kusoo shubay in yaro oliif ama saytuun ayaan kusoo daray labada nooc saytuunka baan hayaa akhtarka iyo madowga qofkii aan haynin wuu iska dhaafi karaa inta yar wax iska yar tasyiin iyo dadka anu quraacdan u sameeyaa basasha iska jecelo ayaan dee u sameeyaa laakiin qofkii aan rabin uu iska dhaafi karaa intaas waa idaafi salad yar buu ku bedelan karaa oo dhakada ka saar karaa kamsareero jarjaray wuxuu rabo halkan kale waxaan kusoo daray waxoogaa cheese ah ayaan kusoo daray cheese-tana qofkaan haynis iyadana maaha daruuri laakiin anigu cheese-tan waan hayay markaa waan ku daray qofkii haystaa wuu ku darsanayaa qofkii aan doonayn wuu iska daynayaa kii aan haynin wuu iska dhaafayaa markaa sidaas ula socda insha allah qofku wax alla wixii uu haysto unbuu samaynayaa kariibkiisana waxba ma diidayo dalac bilaash buuna diidan xataa markaa waxaan soo jarjaray kariibkii 4 jeex ayaan kasoo dhigay sidaad aragtaanba 4 jeex saas weeyaan 4 jeex ayaan kasoo dhigay markaan 4 jeex kasoo dhigayna waxaan samaynayaa waxaan kusoo gurayaa alaabtii aynu samaynay ayaan kusoo gurayaa asxaabi dhisanada qofba dhisan buu jecel yahay hadda doonto waad kala qaadi kartaa yacni kariibkana bilaad baa saari kartaa intan aad dul saarayna bilaad baa saari kartaa waa sidii shawarmada iyo khuustaad isugu laalaabi kartaa waxaad samayn kartaa bilaad keliyo kan ka balaaran ayaad kariibkana dhinac ka dhigi kartaa allahumma salli calaa maxamed intan shawarmadan lagu cunayana aad dhinac ka dhigi kartaa salad yar baad kusoo siyaadin kartaa kaabish yar oo jarjaran waxyaabo yaryar qaji waad ku darsan kartaa haddaad rabtid laakiin anigu aroortii qaji in la isticmaalo iyo macaan sonkor iyo waxa in la isticmaalo anigu idinkulama talinaayo
iyo habeenkii markii lasii seexanayba ina basbaas la isticmaalo anu idinkulama talinaayo laakiin qofkii ay u baahan yahay iskaga isticmaali karaa asxaabay intii markaan saa u sameeyay dushana waxaan kaga soo saarayaa basashii iyo saytuunkii ama oliiftii aan saytuun oliif inagu saytuunka de wax kale inuu naqaanaa jawaafahan saytuun u naqaanaa saytuun jawaafe ayaa la yiraahdaa luqada carabiga kana saytuun baa la yiraahdaa saytuunka quraanka Ilaahay ku sheegay waa kan ka kale inagu saytuunka u naqaanaa wadankeena waxa weyn jawaafe markaas asxaabay in yaro baashina waan dusha kaga yaaciyay baashi maxaa la cheese asxaabay waa kan ma sha Allah tabaaraka raxmaan sidaas ay quraacdeeni diyaar ku tahay ma sha Allah Ilaahay hawayna barakeeyo meel kasta inuu joogno Allah ina xifdiyo wax wanaagsan Allah inagu arsaaqo waxaan rajeynayaa inaynu casharkan ka wada faa'iideysanay ama quraacdan aynu ka wada faa'iideysanay insha Allah madbaqeena aynu ku camiri doono asxaabteena ehelkeena aynu uga faa'iideyn doono insha Allah biidmillaahi kariim intii kalena waa taas asxaabay 3 iyo 4 ba way ku filan tahay marka hore laban baaban u sameeyay qof saa iyo waxaan kaga tagayaa amaana Allah iyo casharo dambe oo xiiso leh insha Allah biidmillaahi kariim maca salaama